waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan mas'uuliyiinta dowlad goboleedyada ka socda iyo shaqaalaha wasaaradda dekedaha iyo wasaaradaha dekedaha dowlad goboleedyada Soomaaliyeed oo halkan aqoon iswadaarsi ugu yimid inaynu ka wada hadalno qaabkan u habeyn lahayn wada shaqaynteena iyo dhismaha hay'adda horumarinta badaha Soomaaliyeed oo runtii wasaaradda hoos timaada shirkan oo socon doona muddo 5 maalmood waxaa looga hadli doonaa qaabka ugu wanaagsan ayaan u dhisi karno maamuladeena hoos yimaada ama maamula badaha Soomaaliyeed oo tan iyo xilligii dagaalada sokeeye ay dhaceen oo burbur ku sugnaa haddana aynu rabno maadaama ay nidaamka federaalka qaadanay in aan habaysano maamulkii badaha soo celino xiriiradii ku saabsanaa wada shaqaynta dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe si ay markaa uga wada shaqeeyaan horumarinta badaha iyo ilaalinta dhibaatooyinka ka dhaca badaheena Soomaaliyeed aan ognahay tan iyo xilligii dagaalada sokeeye ay ka dhaceen wadankeena in badaheena ay noqdeen kuwo lagu daadiyo wasaqda ama si sharci darro ah looga kalluumaysto marka runtii waxaan rajeynayaa in shirkan uu ka soo bixi doono wada shaqayn adag oo u dhaxaysa dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada Soomaaliyeed oo runtii dhamaantooda isku soo taxalluujiyay shirkan inuu suurto galo markaan dalka ku noqonana aynu qaadano wada tashiyo ku saabsan sidaan u xoojin lahayn wada shaqayntaas naga dhaxayso. Assalaamu calaykum.